السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتا qiimaha badan ee ku xiran kanaalkan YouTube ee Gratso isku soo noqod wanaagsan wali waxaan ku jirnaa barashada Adobe Illustrator casharkan waa casharkii toddobaad aynu ku baranaynay software-kan fadlan haddii aad daawan casharadii midkan ka horeeyay daawo si aad u fahanto casharkan waxa uu ku saabsan yahay casharkii midkan ka horeeyay waxaan ku soo baranay waxa lagu magacaabo Pathfinder oo qaybahan ayaan ku baranay sharaxaadooda insha Allah maanta waxaan baran doonaa midkan lagu magacaabo Shape Builder ayaan isticmaali doonaa hadda waxaan u guda galaynaa tusaalayaasheeni meeshan waxaan leenahay right click waxaana soo qaadan doonaa ellipse tool halkan haddii ay ku tahayna essentials waxaad ka dhiganaysaa essential classic sidoo kale meeshan waxa inoo yaala Pathfinderkii asagana meeshiisa ha inoo yaalo tusaalooyin yar yar gaan uga baahannahay kadibna waxa weeyaan haddii uusan halkan ku ool waxaad sameynaysaa window ku dhufo kadibna Pathfinder oo midkaas ugu hooseeya ana waxa weeyaan dooro si uu halkan kuugu yimaado marka inta markii aad samayso halkan fiilkan uu hooseeyo waxaan ka dhiganaynaa madow halkan stroke wax weeyaan waxba ugama baahan markaan u baahanaana halkan ayaan ka bedeli doonaa marka meeshan waxaan ku sameynaynaa waxaan qaadan doonaa hadda ellipse tool si aan u aragno Pathfinder wax uu sameeyo halkan waxaan ku sameyn doonaa hal wareeg oo fiilka uu yahay madowgiisa iska ahaado meeshan waxaan ku dhufanayaa selection toolka si aan mar kale u koobiyeeyo halkan ayaan waxaan qabanayaa alt markii aan qabto click ayaan leeyahay kadibna waa sida u koobiyay oo hal xabo kale ayaan isaga ka koobiyay marka labadan xabo waxaan rabaa inaan ku sameeyo waxa lagu magacaabo isku dar inaan labadooda ku sameeyo oo aan isku daro waxa kaliya aan isku dari karana Pathfinder hadii aad xasuusato wuxuu ahaa unite inaan ku sameeyo ama merge inaan ku sameeyo oo midkaana balse maanta waxaan isticmaalin doonaa waxa lagu magacaabo Shape Builder markii aad sidaan kale u select gareysay labadoodaba waxaad ku dhufanaysaa midkaan lagu magacaabo Page Builder ayaad soo qaadanaysaa kadibna wax weeyaan halkaas meeshan cadadii aan ku tusiyo sidaas oo kale ayaad dhex maraysaa kan waa sample oo tusaale ah adigu waxaad ku dhex sameynaysaa marka meeshan ayaad taxriiqaysaa adiga waxba la qabanaynin si ay u jeedo labadan way isku darsamaan oo qaabkaas oo kale ay isku noqdeen control z hadii aan iraado si aan dhowr jeer kala kugu tusiyo labadan way isku dhaweyn doonaa halkaas kale ayaan geenaya kadibna waxa weeyaan waa select gareyn labadoodaba alt ayaan qabanaya halkaas kale ayaan keenaya marka si aad u wada aragto labadan waxaan ku sameyn doonaa anigoo isticmaalaya Shape Builder labadan kalena waxaan ku sameyn doonaa merging ama waxaan ku sameynayaa midkan unite si aan ku tusiyo mar labaad markan select gareeyo labadooda aan Shape Builder soo qaado halkan ayaa dhex marsiinaya labadooda isku noqonayaan hal shape markii aan doorto colorka waa ka bedeli karaa hal mar cagaarkaas oo kale aan ka dhigo waa hal shape oo isku darsamay si aan shape-ka isku darto waxaad isticmaalaysaa Shape Builder hadda midkan waxaan u baahanahay iyaga inaan isku daro markii aan sidaan ku highlight gareeyo waxaan ku dhufanayaa unite sida u jeeda ayagana waxay isku noqdeen hal shape oo wax weeyaan isku darsan marka labadooduba shaqadoodu way isla qabteen qofka markuu barto tools badan oo wax weeyaan fikirka dhinaca doonta ayaad u leexin kartaa markaas waxaan u guda galaynaa bal qaybteena ku xigta kana inaad aragtay qaabka la isku daro ama unite-ka loo sameeyo waa rajeynaya marka waxaan leeyahay control z si aad u wada aragto wax oo dhan hal mar kan waa laba kala qaybsan yihiin mar kale kan waa kii hore aan soo sameynay asaga halkaas ayaan dhigan doonaa midkan ayaa asna sidoo kale waxaan sameynayaa alt ayaan qabanaya waan koobiyeenayaa wax oo dhan waxaan rabaa inaad midkan kor ayaan u qaadayaa waxaan ku sameynayaa kan Shape Builder midkaana waxaan ku sameynayaa dabcan qaybahan kale ayaan asagana sample ama tusaale ka qaadan doonaa midkan markii aan select gareeyo sida u jeedo labadooda waxaan u baahanahay inaan bil aan sameeyo kale kan ayaan qaban halkaas kale aan geenayaa Shape Builder waad ku sameyn karaysaa marka labadan way kala midab dugan yihiin tusaale kan ayaan u baahanahay inaan color gooniya ka dhigo waxaan ka dhigayaa si aad u wada aragto wax oo dhan kan waa shape gooniya oo color gooniya leh midkana waa shape kale labadooda waxaan u baahanahay inaan ku sameeyo waxa lagu magacaabo Shape Builder ayaan soo qaadi doonaa halkan ayaan keenayaa waxaan qabanayaa alt ayaad qabanaysaa alt markii aad qabato halkaas kale ayaad ku jiidaysaa waa ka fuqaysaa marka si ay u jeedo wuu jaray qaybtan wuu jaray Shape Builder-ka waxna waa la isku daraa waxna waa lagu jaraa marka waxa aan sameeyay wax weeyaan alt ayaan la qabanayaa marka waxaan leeyahay control z si aad u wada aragto kan waxaan ka dhigayaa color gooniya blue gas ayaan ka dhigayaa waa laba shape oo kala duwan midna waa kan hadii halka geeyana waa labadooda halkaas oo kale isku keenaya bishaas oo kala raba inaan sameeyo waa select gareyn Shape Builder ayaan soo qaadayaa alt ayaad qabanaysaa kadibna sida ay ugu soo jiidaysaa bishii wadiga sameeyay kan marka tusaaleeyni kale kuwan aan uga baahnayn waxa weeyaan halkan intaan doorto color gooniya baan ka dhigta daan rabo qaabkaas oo kale aan keeno halkaas oo kale aan geeyo aan select gareeyo labadoodaba
kan midab gooni ayaan ka dhigan doonaa asaga waxaan ku sameynayaa bluegaas kala baan ka dhigo si aad u wada fahanto halkaan kala marka aan keeno waxaan dooranayaa marka midkaan lagu magacaabo men's front oo marka hore ahaa waka bishin waaniga sameeyay sheebilar kuwaan oo dhan shaqadii qabtaan labadan iyo kuwaan oo kaleba waad ku qaban karaysaa marka toolska inaad wax badan ka baratahay aad bay ku anfacaysaa marka hadii inaad fahanto inaad sheebilar marka aad wax ku jarayso alt ayaad qabanaysaa markii aad isku darka sameynaysan alt ma qabanaysid waa ku jiidaysaa wax oo dhan sheebkuna isaga ayaa isku daraya waxaan hadda sameynayaa marka qaybta xigta ah inaan laba sheeb oo kale oo wax weeyaan laba ellipse tool ayaa marka la soo qaadayo si aan ku tusiyo halkaan oo kale ayaan dhigan doonaa asagana sidoo kale mar kale asaga ayaan wada koobiyeenayaa halkaan oo kale alt ayaad qabanaysaa halkaas kale u jiid waxaan rabaa halkaas kale inaan geeyo midkaan waxaan u sameynayaa tusaale color gooniyaba aan u sameeyaa hadii aan rabo cagaar ama aan ka dhigaa midab kale waka labadooda marka aan select gareeyo meeshaas dhexe ee iska qabsadaan ayaan u baahanahay inaan inaan kala qaybiyo marka waan koobiyeenayaa asaga dhowr xaba ayaan ka dhigaya kana hal tusaale ayaan ka tusinayaa page builder shaqadiisana hal tusaale ayaan ka tusinayaa alt ayaan qabanayaa halkaas kale ayaan geyn marka waka shay builder ayaan ku hormarina aan select gareeyo labadoodaba meeshaas dhexe ayaan u baahanahay inaan ka jaro shay builder ayaan soo qaadayaa alt ayaan qabanaya click on baad ku siinaysaa si ujeeda meeshaas dhexe uu ka bixiyay mar kale shaqada marka kan uu ku qabanayo dhexdaas markii idin ka bixiyayna kuwaana sidoo kale markii aan sidaas sameeyo waxaan imanaya midkaan lagu magacaabo exclude ka ayaan iman click ayaan ku siinaya exclude kin uu ujeeda shaqadu qabtay meeshaas dhexe inuu ka bixiyo marka page builder kan shaqadan uu midkaan qabtay uu qabtay inkastoo colorka uu iska mid dhigay taasina wax weeyaan wax sidaa u muhiim ah mar walba in meeshaas dhexe la jaro marka mar kale ayaan kanoo kale abuuri doonaa si aan mar kale ku tusiyo ellipse tool ayaan soo qaadan halkaas oo kale ayaan keenayaa wax weey kan ayaan koobiyen doonaa asaga waka alt ayaa qabanaysa halkaas oo kale ayaan keenayaa mar kale kan colorkiisa aan gooni ka dhigaa ama nooc doona aan ka dhigay waka aan highlight gareeyo aan koobiyeeyo waxaan dooranayaa alt ayaan qabanayaa kan kore waxaan u isticmaali doonaa shape builder ayaan u isticmaalayaa waa kan shape builder aan soo qaaday alt anigoo hayni ayaa click ku siinaya oo kaliya waka markaana bal fiiri meeshaan day qaabkan uu kala qaybiyay waka meeshaas kala day kana day qaabkaas in loo kala qaybiyo waa shay builder waxba alt lama qaban click ayaad ku siinaysaa oo kaliya kan aan asagana sidoo kale select gareeyo divide ayaan ku dhufanayaa divide marka click ku siiso halkaan right click dheh an group ka dhig waka kala qayb kan halka ge kana halka ge waka mar waad ku sameysay wax weeyaan shay builder adigoo isticmaalaya marna adigoo divide isticmaalaya marka shaqooyinka kuwan ay qabtaan inta ugu badan divide waa ku qaban karaysaa inaad fahamtana waa rajeynaya qaabkan hadda wax u kala googooyay casharkii midka ka horeeyay waan ku aragnay anagoo divide laba shape kala goynayna rectangle-da u kala goynaysa casharkii hore waxa weeyaan bal kulli kuwaan oo dhan waa iska saari doonaa waxaan rabnaa shaqo yar inaan ku qabanno casharkeenina waa halkaas ayuu ku ekaan doonaa insha Allah markii aan qaabkan oo kala sameeyo waxaan soo qaadi doonaa meeshaan rectangle laba saddex rectangle oo kale waka halkaan oo kale aan keenay waxaan dooran doonaa selectiga waxa weeyaan waxaan alt ayaan qabanaysaa halkaan oo kale laba mid saddexaad saddex waka saddexdaan kan xogaa yar aan soo dhaweeyo halkaas kale aan keeno waka saddexdaan si aad u jeedo midkaan xogaa halkaas kale okay cabiradooda korana ka sinaadan waa kulay saddexdaas okay saddexdaas markii aad sameyso rectangle ulood waxaad sameynaysaa saddexdaba hal mar dooro adigoo select gareynay halkaas ka qab muuska halkaas geynaysa waa ku jiidaysaa marka calaamadda marka ku soo baxdo okay halkan ayaad imanaysaa muuska markuu fog yahay sidaan ayuu eegyahay marka soo dhaweysay geeskaasna qaabkaas ayuu noqon doonaa click ayaad leedahay adigoo muuska wax weeyaan click taaya xogaa halkaas ayaad u jiidaysaa sidaas oo kale ayaad ka dhigaysaa xogaa markii aad sidaa u jaleeciso 27 degree oo kale ka dhig okay markaad ku sameyso sidaa waxaad sameynaysaa marka waxaan soo qaadaysaa rectangle kan weyn halkaan ayaan rectangle ka weyn dhigaya halkaas oo kale midabkiisa waxaan ka dhigayaa cadaan ayaa ka dhigayaa background kan dambe ayaa u ekeysiinaya waka select dooro xogaa halkaas kale u dhawe qaabkaas oo kale markii aad sameyso waxaad sameynaysaa waxa dhan marka waa select gareynaysaa muuska halkaas gee sida u dooro waka page key builder ayaan imanaya halkaan ayaan qabanaa anigu alt iyo waxba qaban sidaas ay u jiidaya oo kaliya halkaan oo kale aan imaado midkan hoose aan doorto kadibna waxa la leeyahay delete si u jeedo waka qaabkan ma garanaysaa marka loogada halkaan kaaga soo baxday right click aan iraahdo group aan ku sameeyaa adidas marka loogadii wata qaabkan u sameeynay marka wax weyn ma aha
rectangle waxaan kaga tusinayay dabcan maanta oo dhan ellipse tool hadda waan aniga kugu tusiyay rectangle saddex xaba oo aan ku jaray rectangle kale inaan ka soo saaray wax macno leh oo loogada Adidas ay isticmaasho shirkadaasi marka waxaan u baahanahay ugu dambeyntii casharkeena meeshan waxaa ku jira wax lagu magacaabo group selection tool rectangle-ladani waxay ku jiraan group right click dhe marka hore dooro kadibna waxaad leedahay right click meesha sida u jeedo group ayay ku jiraan waxaan u baahanahay oo groupkooda ku jira kan inaan color ka dhigo kan inaan color ka dhigo kan inaan color ka dhigo waxaad dooranaysaa kan midkan ugu hooseeyo group selection click ayaad ku siinaysaa halkan imow colorka doonto ka dhigo waa ka qaabkaad u doortay mar kale dooro marka koowaad kadibna waa ka dhig waa kano hadda imow dooro wax ka midab kale gooniya kan sidoo kale dooro waa aan qaabkaas ka dhignay asagina waa bari aad fahanteen waa rajeenay waxa deel is group yiin hal mar kan imow kadibna halka ay ugu saaraysa marka wixii kulay muuqaalkeena halkaas ku yahay page builder qaabkaas ay u shaqeeya rectangle waa ku gudisay ellipse tool waa ku gudisay loogada yarna waan ku sameeynay adiguna isku day laba rectangle marka hore saddex rectangle oo kale sa u soo jiid halkaas ka markii aad sameyso select dooro marka hore kadibna alt qabo qaabkaas oo u koobiyay alxab markaad koobiyayso marka la qabo waa xogaa yarna adigu kulay kor ha ka sinaada inkastoo kala dheer tahay loogadu halkaas oo kale wax yar kana sidoo kale waxaad sameynaysaa halkaas gilgee loogada Adidas xogaa inay kala dheer tahay u maleyn qaabkaas oo kale marka sidaa ku dooro halkan qabo wax weeyaan muuska kale ku si xogaa yar ilaa 20 degree oo kale ama 28 27 meelahaas kala gee okay rectangle soo dooro halkan rectangle ka keen waxaad ka dhigaysaa rectangle ka cadaan ayaad ka dhigaysaa white halka selectiga dooro mar kale kor u jiid halkaas kale gee waa intaas kale markii aad keento waa okay waa intaas kale muhiim waa okay hal mar select garay wax oo dhan wax weeyaan page builder hal mar sida u wada marsi kadibna select dhe halkan ku dhufo kan iska delete asagoo dhan waa sida loogadi ku sameysay muuqaalkeena halkaas ku yahay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh